sidaad ugu sameyn lahayd Alight Motion-ka filterkan quruxda badan part 2. marka soo guda gallo waxaan soo qaadan doonaa resolution-ka muuqaalka aan rabnaa inaan sameeyno. hadduu muuqaalku yahay muuqaaladan TikTok oo kale saasaad ka dhigaysaa resolution-kiisaasu. kii kale YouTube-kana waa kan, Instagram-ka iyo Facebook page-ka iyo meelihii kalena waa kuwa. haddii resolution-ka marka soo saxatid waxaad soo oran doontaa Create Project, kadibna waxaad oran doontaa plus-ka taaban doontaa. plus-ka markaad habatid muuqaalkii aad rabtid inaad hagaajid ayaad soo qaadan doontaan. anu muuqaalkaas ayaan hadda soo qaatay. haddaba muuqaalka hadda markaan soo qaatay muuqaalka waa kan waad aragtaa oo waxa weeyaan muuqaal caadiya oo wuxuu leeyahay colorkiisa caadiga ah. haddaba plus-kaas ayaan taaban doonaa, kadibna shape ayaan soo qaadan doonaa. kadib markaan shape soo qaato shape-kan ku wada ballaarin doonaa. kadib markaan ku wada ballaariyo color-ka yar ma siin doonaa, bakaasaan siin doonaa. ka markaan siiyo halkan baan tigi doonaa ay ku qoran tahay blending and kadib markaan tago halka blending ku qontay kan ay ku qortay difference baan tigayaa. kadibna halka ay ku qortay subtract baan ka sii taabanaya. kadib markaan san u madoowaado oo subtract sii taabto halkan waxaan tigayaa ay ku qoran tahay effect-gaan imanaya. kadibna add effect baan odhanaya. halkan saddex effect aan adeegsan doonaa. effect-yada xagga searching waad ka raadin kartaa. saddex effect-na sidan way kala sareynayaan. ugu horeeya waxaad soo qaadan doontaa copy background baa ka soo qaadan doontaa oo xagga background kaad keenaysaa search-kana ku qori doontaa. effect-ga labaad waxaa la yiraahdaa waxa weeyaan effect-ga labaad isaguna waa exposure gamma. exposure gamma marka soo qaato haddana add effect baan odhanayaa taaban maayo. kadib haddana waxaan soo qaadanayaa kaas bullarta ah. saddexda effect marka soo qaato muuqaalkaygii sidan ayuu noqday. haddaba marka muuqaalkayga sidan noqday waad aragtaa wuxuu si kale isku bedelay, wax madow baa fuulay. copy background tigi maayo exposure gammaha ayaan furay. exposure-ka markaan furo exposure-ka hore in yar baan yar dhaqaajinayaa. markaan in yar yar dhaqaajiyo gammahan isaga xoogaa baan sidan u yar wadayaa. markaan gammihii xoogaa sidaa yar wado xoogaa baan saa u yar wadayaa. waxaa yimi kan baa yimi isagana offset-kana in yar ayaan meelahaasan geynayaa. kadibna kan baan xoogaa yar saxanayaa. markaan ka intaa ku dhameeyo waan ka baxayaa. waxaan tigayaa effect-gaan tigayaa. kadibna blur-ta imanaya. blur-ta markay imaado iyada sidan baan ugu darayaa. saa markaan ugu daro muuqaalkii waxay ka beenaysaa cadaankii iyo wixii ku dhex jiray isku qasnaa. kadib markuu saa muuqaalkii uu qurux badnaado muuqaaladu sidoo kale qurux badan yihiin bay kala duwanaanayaan. waan daawan karaa hadda marka muuqaalkii saan u qurux badnaaday waad arki kartaa oo inuu aad u qurux baday. markii hore sidan buu ahaa, haddana sidan baan ka dhignay oo saas u qurux baday. kadibna saas baad ugu jiidaysaa iyaad u leekaysiinaysaa. marka muuqaalka saas u ahaa, saa markuu ahaa sidan baan ka dhignay oo waad aragtaa oo in badan waad aragtaan filayado muuqaalo badan dul saar aad iyo aad baa mahadsantahay.